بسم الله الرحمن الرحيم وغيرين waxaa mahadska Allah subhanahu wa ta'ala halka isugu keenay markii xigta waxaan u mahadcelinayaa maamulka Sahal Cable iyo dhamaan teamka Sahal runtii oo shaqaynta wanaagsan iyo runtii muddadii koobnayd ay warbaahinta Puntland ku soo biirtay nagala shaqeynaysa bahda ciyaaraha gaar ahaan gobolka Bari runtii isbedel aad u weyn laga dareemayo oo u mahadcelinayaa maamulka iyo mas'uuliyiinta Sahal Cable waxaan rabaa inaan ka hadlo barnaamij ku saabsan haddii ilaahay idmo 25 bisha November 25 bisha ugu gudo jiro haddii ilaahay idmo insha Allah taala waxaan qaban doonaa haddii ilaahay idmo orodkii ama tartankii orodada 3 kilomitir oo iska kaashanayaan wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha gobolka Bari xafiiskeeda gobolka Bari iyo jaamacadda Sahal University oo runtii barnaamijkaas iyadoo taabagelin doonta maamulka iyo macallimiinta Sahal jaamacadda Sahal University oo mahadcelinayna runtii wada shaqeynta iyo wanaagaas dhamaan dhalinyarada ku nool magaalada Boosaaso iyo guud ahaan gobolka Bari wixii ka qayb gali karta barnaamijkaas oo abaalmarin runtii dhalinyarada ay farxad gelin doontaan lagu bixin doono inay iska soo diiwaan galiyaan xafiiska jaamacadda Sahal ee ku leedahay magaalada Boosaaso insha Allah taala insha Allah waxaan rajayn doonaa tartankaasi oo muddo 2018 ugu dambeysay lagu qabto magaalada Boosaaso aan bishan insha Allah takeeda qaban doonaa haddii Ilaahay idmo إن شاء الله waxaan rajayn doonaa cid kasto oo arintan hadii amni noqotana runtii taliyaaqeeta booliska gobolka Bari Mudane Cabdiqaadir Jacdir oo insha Allah taala isaguna amnigeeda iyo maadaama wax kasta ay u baahan yihiin amnigu ka horeeyaan aan uga mahadcelinayo sida wanaagsan oo amniga wada shaqeynayo marka dhamaan dhalinyarada ku nool gobolka Bari gaar ahaan magaalada Boosaaso cidii danaynaysa tartankaas orodka inay ka qayb gasho abaalmarinta iyo taabagelintiisa iska kaashanayaan wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo jaamacadda Sahal University inay xafiiska Sahal tagaaniin haddii Ilaahay idmo waxaan rajayn doonaa inuu noqon doono tartan furan oo runtii aan wax cid gaar loo qabanayo dhamaan dhalinyarada gobolka Bari insha Allah taala ay ka qayb qaadan doonaan mar labaad aan u mahadcelinayaa mas'uuliyiinta jaamacadda sidoo kale aan u mahadcelinayaa TV-ga Sahal runtii marka saxna oo sidii loo horumarin lahaa dhalinyarada iyo bulshada isu dhexgali lahayd aad baa mahadsan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.